dowladda Soomaaliya ayaa ugu dambeyn ka tanaasushay amarkii madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee ahaa in la soo xiro taliyihii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir General Saadaq Cumar Xasan Saadaq John. ciidamo fara badan ayaa xalay fiidkii loo diyaariyey inay weeraraan hoyga uu General Saadaq John arbacadii ka degay xaafadda Shirkore official ee degmada Hodan. xoogagan ayaana lagu arkayay wadooyinka soo gala xaafadahaasi, balse wax walba waxay isbedeleen kadib markii ay miro dhaleen dadaalo uu qayb ka ahaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo ka hor yimid in ninkaasi la weeraro. madaxweyne Qorqor ayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ka codsaday in laga baaqsado weerar uu dhiig ku daato. ila wareedyo ayaa sheegaya in wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala uu saqdi dhexe ee xalay hoygiisa ku booqday General Saadaq John, isagoona ugu baaqay inuu aqbalo soo jeedin uu markaasi u waday, taasoo la sheegay inuu ka aqbalay. warar aan xaqiijin ayaa sheegaya Saadaq John in goor dambe oo xalay ahayd uu la kulmay ra'iisul wasaare Roble, isla markaana ay ka wada hadleen safar musaafiriin ah oo ninkaasi dalka uga tagayo. Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Al Cadaala, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray in Muqdisho ay nabad tahay. gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare ayaa isaguna sheegay inaanay wax caqabad ama colaad ahi ka jirin magaalada Muqdisho. laamaha amnigu waxay u taagan yihiin goor iyo ayaan habeen iyo maalin sidii ay uga hortagi lahaayeen isku day kasta oo la isku dayo in lagu carqaladeeyo ammaanka iyo nabadda iyo horumarka sida xawaaraha uga socda magaalada Muqdisho. waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo uu aqli celiyay dhalinyaradii la doonayay in looga faa'iideysto in dhiigooda laga dhex abuuro fursad siyaasadeed, haatanna si nabdoon oo xilkasnimo iyo xigmad leh ugu soo celiyay aqaladooda. marka laga soo tago hadalka ka soo yeeray Cali Yare ayaa waxaa jira ila wareedyo lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in Villa Soomaaliya ay badashay mowqifkeedii hore ee ahaa in la weeraro lana soo xiro Saadaq John, sababtuna ay tahay in Isniintii uu damcay inuu hakiyo kulankii xildhibaanada golaha shacabka ku meelmariyay sharciga gaarka ah ee jiheynaya doorashooyinka dalka. Villa Soomaaliya ayaa tuhsaneed in jananka uu shisheeyuhu adeegsadeen. ila wareedyadu waxa ay sheegayaan in madaxda dowladda federaalka ku qanceen in Saadaq John uu si nabdoon uga amabaxo magaalada Muqdisho si looga baaqsado dagaal uu dhiig ku daato. sharciga gaarka ah ee golaha shacabka meelmariyeen ayaa dabka ku sii shiday xaaladda siyaasadeed ee dalka oo markii horeba uu jahwareer badan ka taagnaa. sharcigan ayaa hay'adaha dowladda federaalka u ogolaanaya in muddo 2 sano oo kale sii joogaan, inkastoo ay si weyn uga hor yimaadeen golaha midowga musharaxiinta, maamulada Puntland, Jubbaland, gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo waliba beesha caalamka. isku soo wada duubo xaaladda magaalada Muqdisho ayaa saaka degan kadib dhiiladii colaadeed ee xalay laga dareemay. Maxamed Yaxya Jinow, warbaahinta Nation, Muqdisho.